وحلقة دحلي دين كيدا ما دلنتي دحل كيدا يوان سيداني قدمانا waxaana mar kastaba xusid iyo xusuusinba mudan in deegaanada buuraleyda xooggarad ee waqooyi bari ceerigaabo si fudud looga dhigi karo deegaano qayb ka noqon kara dhulka ugu quruxda badan ee Soomaalidu degto haddii la iska xil saaro in deegaanadan loo sameeyo wado baabuurtu mari karto taasoo meelaha ay mari doonto aanay lahayn wax laagag ama togag waaweyn ama waxyaalo kale oo caqabad ku noqon kara isla markaana wadadu u tahay furaha in deegaanadani yeelan karaan isgaarsiin biyo goobo caafimaad goobo waxbarasho goobo dalxiis iyo waxyaabo kale oo ay kaga soo kaban karaan duruufaha adag ee muddada dheer ay deriska la soo ahaayeen waxaana goobaha aanu maraynay qaarkood ka jiray meelo ay bulshadu ugu talagaleen inay maalmo kooban biyaha ka cabaan oo ay gacantooda ku samaysteen balse u baahan in la sii ballaadhiyo oo looga dhigo dhaamam ay biyaha ka cabi karaan iyo weliba meelo kale oo ay u diyaariyeen goobo waxbarasho iyo caafimaadka iyo meelo iyaguna ku habboon dalxiiska kuwaasoo dhammaantood u baahan gacan qabasho ka dheeraad ah awoodda bulshada deegaanadaas ku dhaqan marka hore horta waxaan jeclahay inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo axmed darwiish iyo cabdilaahi cadiisi oo iyagu la-aantood run ahaantii aanan ima kareen dhulka kan aadka u dheer labadaa nin aad baan ugu mahadcelinayaa iyo dhammaan dadkii ahaa beesha ka mid ahaa nasoo tamataabiyey anu ilaa habeen hore yaniga martiqaadka noo fidinayay safarka iyaga weli ma dhowaa imika dhulkaan ku soconno safarkii kala barhka ayaanu kaga jiraa waxaa noo hadhay intii aan soo soconnay in leeg ama ka badanba waxaanu u degi doonaa cashii dhulkay casha ahaa imika laagi baanu joognaa laagii dejil baa halkan laydhahaa imika elintii garada weeye halkani dadka qaar baa moodi doona xaramooli iyo meelihii yaraa halko argabagteeda waana xaal naga hooseeyana waa laagii inta aan aryaantii ay ku xidhan tahay cashii oo naga hooseysa iyana markaas saas waxaan leeyahay de waa daawanayo waa dalkaagii waad aragtaan dee quruxda ka muuqata maanta laba cashaan soo soconay meesha tan laba casho gaadhiga waxaanu kaga degnay hal daagan aan reer ugu hoynay intaa waa soo soconay intii ka dambeysay oo dhan welina waxaa noo soo hadhay cashii oo dhan cali urursuge cali musiyoonis waxaa noo sii hadhay ilaa iyo gubankii xaabihii waqdariya shidan ilaa iyo geelweyte yacniga dhul laga dhammaanayo maha dhul run ahaantii aad iyo aad u ballaadhan weeye waxaanu rajaynaynaa in marka hawsha noo soo dhammaato si fiican aan ummadda ugu soo bandhigi doonno si maalgelin bal dadka maata dhulkan u dhashay iyo guud ahaan reer sanaagba ay ugu samaystaan maalgashi dhulka kan dhulkan waa dhulka muqadiska ah gaar ahaan beeshan garxajis bari muqadiska u ah muqadisku waa dhulka waxa weeye sacred land waa dhulka yacniga barakaysan gaarka waa exceptionalka lagu xisaabtamo ahna dhulkii laga tafsiirmay run ahaantii oo waatan halkii saddexda ilmo muuse iyo sallax afartaasiba waxay ku dhasheen iminka sijeedkan ayay ku dhasheen waa dhulkii aan ka soo farcannay waa dhul aanu aad u ilaashanayno run ahaantii oo nagu dheer qiimo weyna noole juquraafi ahaan istaraatiijiyad ahaan taasna waxaa iminka ishu ugu soo jeedo ilaa iyo ka naga degan insha allahu gorgor iyo ina nuur muuse inay dhulkan maal yimaadaan kusoo noqdaan dhulka awayaashood waxaan doonaynaa inaanu samayno dhulkan oo sahmino meel waddo u noqon karta bulshada ku dhaqan deegaankan oo cid walba leh hadday tahay kuwa u dhashay hadday tahay kuwa u dhalan doona hadday tahay kuwa iman doona iyo hadday tahay kuwa maal gashan doonaba waddaday mari lahaayeen ujeeddada markaa socodkayagu intaa weeye maanta meeshaan joognaa waa dijil garad baa looga degaa waatan cayriyaamadii xagga hoose naga maraysa ood arkaysaan annagii baa ka sarrayna joog ahaan maanta cayriyaanta wata dhabarkayga maraysa marka insha allah waan u degi doonaa meeshay maraysana waan tegi doonaa wixii dambena waan la soo socodsiin doonaa dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii dhuuxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheeryaqay sidii kubad anan dhalay oo kalaan dhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhuulay ugu dambeyntiina waxaanu socdaalkan uga mahad celinaynaa guud ahaan bulshada deegaanka xooggarad ee muddada 3 casho iyo 3 habeen ah aanu dhex maraynay oo ay ugu horeeyaan axmed xaaji jaamac iyo cabdilaahi cadaysi oo dalyaqaan noo ahaa iyo weliba kuwiina martigeliyey iyo kuwii kale ee na tabantaabiyey intaba
tan iyo kulan dambena dhammaantiin maanigo cabdullaahi xuseen darwiish siciid xasan duunyaare cabdilqaadir axmed xasan wariyaha ugu weyn ee nala socodina farsamada siciid muuse faarax oo ahaa kamaramaanka cabdullaahi cadaysay oo isna daliiqaanka labaada iyo axmed darwiish oo daliiqaanka koobaada dhammaantay waxaan idin leenahay meelaad joogtaanba isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheeryahay sidii kubad aan dhalay oo kalaan dhabu jelaystay barwaqada dhex taalayo nimcada waan ku dhulay dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay dhaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli jiray cimila dheefteed dhayihi jalle